halkani waa magaalada Burco waa fagaaraha khayriyada magaalada Burco oo ay shalay isugu yimaadeen dadweyne aad u fara badan sanad walba marka ay soo dhawaato bisha May Somaliland waa u sanad guuro dabaaldegani waa mid socon doona habeen iyo maalinba inta laga gaadhayo xuska sanad guurada 18 May أنا كنينو يهاي عيد شرايقة إنو يهاي عدد كمانو كيني ولا بريا كمانو كينين حق دد بردي قادو قبتي كان ما تبريا كمانو كينين دد باو قبتي dhanka kale waxa aad loo diyaariyaa ciidamada mari doona maalinka sanad guurada Somaliland iyadoo oo maalin kasta la soo bandhigo xubno aad u tiro badan oo kamid ah ciidamada kala duwan ee qaranka waxaa la sii iibsadaa calamaanta sida labiska dharka ciidka oo kale sidoo kale waxaa la camiraa goobaha caweyska ee habeenkii la isugu yimaado 18 May waa maalin ay weyneeyaan dadweynaha reer Somaliland mana jirto dhul ay Soomaalidu degto oo sidan oo kale xus looga sameeyo qof waliba dhankiisa ayuu xil gaar ah iska saaraa si loo dareemo maalinka weyn ee soo aadan waxaa la sameeyaa heeso muujinaya qiimaha calanka waxaa fagaarayaasha la geeyaa fanaaniin ku hubaysan suugaanta faca weyn ee Burco iyo Hargeysa ay ku faanaan heesahani waxa ay noqdaan kuwo taariikhda gala oo mararka qaar ay adeegsadaan Soomaalida kale ولكم أسيست سامي كله سنو على يهود شان سرقوا بفنا كسيدو ugu dambeyntii maalinnimadii shalay reer Burco waxa ay muujiyeen nabadgelyada taalla Somaliland iyo jacaylka ay u qabaan xuska sanad guurada 18 May iyo sida ay ugu weyntahay maalinta ay u asteeyeen soo bandhigida cududooda ee xuska sanad guurada 18 May shacab weynaha reer Somaliland waa kuwo mar waliba isku duuban xaalad kasta oo jirta ama marxalad waliba oo wadanku markaasi ku jiro waana sababta dhalisan nabadda ay reer Somaliland dheer yihiin wadamada kale iyo xasiloonida ay ku jiraan Somaliland dalini way dhamantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidubeen Allahu